الله إن سيودنا برنامج كنا أن أير ويل اللي يراه أو قبياء وعرفات شيخ أحمد عرفات ينالك وسليمة دين عرفات هذا بنالك كان بسم الله الرحمن الرحيم وابا آيات عجيبة وي مركز سوى استاقب الله يدكينا يبقى أب سومالي مرحبين الله يدكا كوسي الشتو بسم الله الرحمن الرحيم وحات قانين أنيقو قبيح أما مانسودا أو سوغان كسو تشيديا مسرحية دا سومالي دو أيكو كولانتيا قروح دا بدن ugu horeyn shacab weynaha rag iyo dumarba leh ee sida quruxda badan u fadhiya ee xafladda ka soo qayb galay waan salaamayaa waxa kale oo salaamayaa walaalaheennii wanaagsanaa ee dadaalka dheeraadka u galay si ay xafladdan quruxda badan u qabsoonto waxaan leeyahay idinkuna waan idin salaamayaa si gaar ah waxaa kale oo halkan ka salaamaya dhammaan bahda muxuu ahaa miidiyaha maxaa lagu dhigi jiray af Soomaali bahda muuqaal iyo warlaliyaha universal Soomaaliga inta ku jirta ee afka Soomaaliga wax ku taminaysa inta af Ingiriisiga wax ku taminaysa waa salaamaya ayadana waxaa kale oo salaamaya niman aad u taageero oo runtii aqoon isma lihin laakiin inta aan ka aqaano inay Soomaaliya midowdo nabad dasho cagaheeda isku taagto in badan ka soo shaqeeyay oo maskax iyo fikir iyo waqtiba ku bixiyay kulay isma naqaano waji ahaan iyo hataa cod ahaan isma maqal waa aamin artist aad baan u salaamayaa runtii waxa kale waxaan doonayaa caawa inaan heeso heestii de muusiga la yitmaayay ma meesha cod kuma hayo waad iska ogtiin waxaan rabaa inaad ila qaadaan dareenkiina rabaa inaad soo jeediyo waxbaan idin xasuusinayaa Soomaali baan ahay tiridaba ana le Garissa ana lehe ma ilaawenay tahay dhaxalkii awoowahay Soomaaliyo idil waxumaana uma qabo ana hay walaalnimo afku hadal islaamiyo isirban wadaagna isa samaxaanidhi ma jiraan adduunyada dulinta ka wada mida waxaan xasuusinayaa fanaaniintu waxay qaadaan heeso ama iyagu samaysteen ama ay hal-abuurada Soomaaliyeed u sameeyeen marka ceeb ma aha inaad qaadato suugaan uu qof kale oo walaalka sameeyay laakiin waxa ceeb ah inaad qariso adiga isku qorto heestan waxa iska leh walaalkeen Cabdimaalik Sheekh Muuse Celdon wadani la hubo runtii waxaan leenahay walaalkeen gacan walaalaheenu ku jira waxaan leenahay si edeb iyo anshax iyo asluub ku dheehan tahay oo sidii Soomaalida lagu arki jiray dhaqanka noo ahayd ilmaade reyaal tol baynu nahay waxaan leenahay wiilka walaalkana kama maarin noo soo daayay waa wadani ma aha inaan ajadaagi ka baxay xadkii loogu talagalay iyo geedi socodkii loo qabtay shirka inaan ka baxay maaha laakiin waa arrin kamida arrimaha culayska inagu haya weeyaan waxa kale waxaan rabaa halkan inaan ku sii darsado haddii aad iyo ogolaataan maanta aan u sameeyay asaga runtii waxaan leeyahay
haddaan xukun maadigii baa yimid shaarjigaygii baa yimid shaarjigaygii haddaan xukun hayn lahaa coldoon kolla maan xidheen xabsiya jeel maan dhigeen allaha xafidee coldoon soomaali xorowda iyo midnimo xoogaysatiyo dalkoo xasiluun rabaye xumaato ma aanu wadin xashee nin wanaagsanoo bukaanka xanuunsan iyo dadka xiska beelaye xadhkiyo biro iyo silsilad intii geed loogu xidhay xubnuhu ay googo'een ayuu u xamaalayo xaqdoon xaqooda u doodi jiray xaashee ha yeeshee xifaaltan iyo xamaasad shisheeye iyo inuu xakamaysto cadow kashiisu ma aanay xulin hadday u arkeen xadgudub kuwii dadka oogu xigay kollay xidid ehele iyo xigaal isdhalaynu noo xurmaan kala mudannahee walaal xaal qaata oo coldoon xadhig muugaye intaad siisaan xorriyad ha hela xaqa uu lahaa inaan brogramkii ka baxay ma aha oon xadhkaha goostay waa la ii oggolaaday inaan dareenkayga ku aadan walaalahayga xaaladaas noocaasa ku jira inaan u hadlo runtii nin dhalinyaraan ahay nin dhalinyaraan ahay waxaan jeclahay inaan xaqa dhalinyarada muwaadiniinta Soomaaliyeed u doodo sida wiilasha Hindiya inagaga xidhan oo kale waxaan leenahay hana loo soo daayo dawladdu waxaan leenahay ha la xisaabtanto safaaraddu waxaan leenahay dagaal la samaysa hana loo soo daayaan leenahay wiilasha walaalahana ee South Africa lagu gumaadahayo ee xoolaha lagu dhacayo waxaan leenahay sida nagama qabato South Africa la xisaabtamo